وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة. وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. بشهر مزاياه أكمل، تفوق الشهور سواه. بسم الله، الحمد لله، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى مهد إسكاله نوافجي صون كمال مهن بركيسا بشهر رمضان. ربي سبحانه وتعالى وحن ويدي سنيا إنه نوافجي هوينك هوينة وخيرك بدن ليلة القدر، اللهم آمين. walaalayaal qisada nabi muuse calayhi salaatu wasalaam oo maalmahan aan la nooleynay haddii aan dhahno ka sheekeeya wallaahi ramadaanka dambe xitaa yani way nagu soo gaaraysaa, laakiin waxaan isku daynaa waxay tahay inaan soo koobno meelaha ugu muhiimsan aan isleenahay ramadaanka waa ugu faa'iidaysan kartaa inaan isla qaadano. qisooyinka dhacay waxaa ka mid ah reer bani israa'iil markuu ilaahay subxaanahu ka badbaadiyey fircoon iyo dulmigiisa iyo dhibaatadiisa. ilaahay uu leeyahay وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. رب بني إسرائيل markay ka soo gudbeen badda iyo fircoon uu ku halaagay, markii ayagoo sii socda ay sii wataan sahankooda iyo wixii ay ka soo qaateen Masar iyo ilmahooda ay kaxeynayaan, ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay waxay arkeen qoom caabudaya sanamyo bay meel soo sugteen, geeday caabudayeen, qoraxyo bay caabudayeen, asnaam bay samaysteen, dhoobo bay soo dhoobeen, bay caabudayeen. kadib reer bani israa'iil markay arrinta ay arkeen waxay dhaheen ijcal lana ilaahan kama lahum aalih. yani ay ku dadka ilaahyo ay leeyihiin wix la mid anaga ilaah noo sameey ayay ku dhaheen nabi muuse calayhi salaatu wasalaam. bal fiiri, yani ibni aadanka mararka qaarkood waxaa saameyn ku yeesha waxay tahay aragtida iyo waxyaalaha uu arko. yani nabi muuse calayhi salaatu wasalaam niyadooda iyo wanaagooda buu dejiyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisa waxaa ka mid ah lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad. sanam inuu eekaado iska dhaafee qalbiga ibni aadanka, maskaxda ibni aadanka ilaahay subxaanahu wa tacaala sida uu u yaalay wix la mid ah kama soo dhaca. lam yalid walam yuulad walam yakun lahu wax u dhigma aan wax la mid aan wax u eg ma jirto subxaanahu wa tacaala. kadib marka ay sii gudbeen qoomkaasi magaaladooda ay tageen, isla marka ay degeen buu nabi muuse calayhi salaatu wasalaam reer bani israa'iil iyo walaalkiisa haaruun uu ku dhahay waxay tahay meeshan sii jooga. qayb ka mid ah dad ahlu cibaada, dad wanaagsan ayuu sii kaxaystay si uu dhinaca u tago. isla markaasina tawraad ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkii ugu soo dejiyey nabi muuse calayhi salaam ay ka mid tahay reer bani israa'iil bishaaradaasi, waxyigaasi, isla marka uga dhigo hudan wa nuura, iftiin iyo nuur. waxaa dhacay kadib waxay tahay nabi muuse markuu sii baxay oo qoomkiisa ugu tagay haaruun calayhi salaatu wasalaam nin lagu magacaabi jira muusa assaamiri. ninkaasi waxaa la sheegaa waxay tahay wuxuu ahaa alxame, farsamo yaqaan aad u cajiib badan. baa wuxuu dhahay waxay tahay maalin maalmaha ka mid ah reer bani israa'iil markii ay ka tagayeen Masar waxay soo qaateen waxay tahay dahabkii iyo xoolo ka mid ah magaalada Masar yaale ayay sii qaateen, raad bay sii qaateen. markii ay sii qaateen ay wuxuu amray waxay tahay meel ku kulmiyaan, isla markaa wuxuu uga sameeyay waxay tahay loob buu uga sameeyay. wuxuu ku dhahay yani hada ilaahu muusa fanasi, yani kani waa ilaahi adinka aaraadinayseen. nabi muusena wuu bahnaamay, wuu iska baxay tawraad inuu soo qaatay wax kale uu ku mashquulsan yahay, uu ku maqan yahay, laakiin ilaahiisu hilmaamay. kadib markii reer bani israa'iil ay arkeen quruxda iyo farsamada ka muuqata waxay bilaabeen waxay tahay lo'dii iyo wix lamid inay caabudaan. nabi haaruun calayhi salaatu wasalaam asigoo arrintaas aad ugu xun wuxuu dhahay ilaahina waa allaha raxmaanka ah naxariista oo aan waxna u dhigmin, yani iska dhaafa waxaan iyo wix la mid ah ka jooga. kadib ayaa waxaa la sheegaa waxay tahay qayb ka mid ah inay diideen, ay dhaheen markuu nabi muuse soo noqda un ayaan wax kala samaynayna hadda, laakiin ilaahana sax ee waa runtiisa muuse assaamiri, ilaahana caabudaan. nabi haaruun hadalkiisa way khilaafeen, qoom kale nabi haaruun calayhi salaatu wasalaam hadalkiisa bay raaceen. waxay ogaayeen waxay tahay yani waxa muuse assaamiri uu la damacsan yahay reer bani israa'iil inuu dhumiyo iyo wixii la mid ah. kadib waxaa dhacay waxay tahay nabi muuse calayhi salaatu wasalaam oo ku mashquulsan tawraad inuu ilaahay subxaanahu u waxyooda ayaa waxaa dhacday waxay tahay
in nabi muuse calayhi salaatu wasalaam uu u sheegay ilaahay ayagoo halahaasi kilomitr isku jiraan in qowmkiisa gadaashooda ay dhumeen yani gadaashiisa kadib ay dhumeen yani muuse saamiri uu dhumiyey la uga dhigay ilaahay wixii la mid ah kadib ayaa nabi muuse asigoo qadbaana asifa aad u xanaaqsan islamarkaa yani xanaaqiisa yani asifa aad uga xun wuxuu u sii dhaqaaqay waxay tahay magaaladii markuu arkay ayagoo reer bani israa'iil caabudaya lo iyo wix la mid ah yani kadib ayaa wuxuu u tagay waxay tahay walaalkiisa alwaaxi tawraad loo dhiibay inuu ku tuuray isagoo xanaaqsan ayuu wuxuu qabtay garbaha iyo maxalli garka uu ku qabtay walaalkiisa wuxuu ku dhahay waxay tahay waxan ay sameynayaan maxay tahay kadib ayaa nabi haaruun waxaa lagu yaqaana waxay degnaani wix mid ah wuxuu ku dhahay waxay tahay yabna laa ta'khud bilixyati walaa bira'si ha qabanin garkayga wix la mid ah sababtoo ah إني خشيت يعني وحان كعبس وحيتها إن رب إسرائيل أي تفراغ لحظة وكدع بحلة مدة أنيجا مان أو ذي مكان أك إني لقي عبد بحلة مدة إن أنيجا أن كدقاق وأن كفوا هذا أذي أن كوي ماذا مان أو ذين صوبت أو وحان كعبس وحيتها رب إسرائيل إني تفراغ لحظة كدع عضو دبعت بدن وهذا دبعتان يا دبعت كسي دعن inay ka dhacdo asagoo ilaalinaya maslaxada ayuu u joojiyay kadib ayaa waxa loo sheegay waxay tahay inuu arintaas ka dambeeyay Muuse as-Saamiri حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة حياتي مع الله أجمل مع الله waxyaabaha aan ka baranayno Saamiri oo u sameynaya reer bani Israa'iil sanam ay caabudaan yani ilaah u sameynaya ayagana ka dabadaysanayaan waxay tahay in aanan noqon dad yani dadka kale u jideeya xumaanta iyo faaxishada iyo munkarka iyo fasaadka sababtoo ah yani way kala dambi badan tahay maanta keligaaga hadaad qalad aad samaysid tusaale ahaan keligaaga inaad qamrada aad cabtid keligaaga in yani been aad sheegtid ama inaad meel aad istaagtid aad dhadid kaalaya dhammaan qamraas la cabayna kaala yani dadka ilaa u jidaysid waxaas ay adi sabab u noqotay dadka inay qaladaad ay sameeyaan way ka dambi badan tahay sababtoo ah ayaga dhan qaladaadka ay sameynayaan dushaada ayaa adigana yani qalad ayaad ku leedahay nabi sallallahu alayhi wasallam xadiisna wuxuu leeyahay waxay tahay man sanna fil islaami qofka dadka u jideeya diinta islaamka yani ugu jideeya wada wanaagsan tusaale ahaan salaada cibaadada dhikriga quraanka iyo waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu jecel yahay asigana ajr ayuu leeyahay qof walba yani sameeyana oo asoo sabab u ah ajrkaasna uu ku leeyahay يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم وليه الدال على الخير قف كدتك وناقة تصيا وحلمت يا قف سميي أو كله وشيء أدي مهم أمك مال بقى جوكتي نقو قف وناقة فرة نقو قف وناقة فافية سأديك أجر أوهشت أجر كدتك أوهشت لكن هداد نقطة بالعكس قف حمان تدتك أجهية الله سبحانه وتعالى قوانك يسمعوك ليه وتعاونوا على صح بر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان waxaad isku kaashataan waxay tahay wanaaga iyo alla ka cabsiga hana isku kaashanina xumaanta iyo fuxshiga mar walba noqo qof dadka wanaaga ku dhaxfaafiya qof wanaaga dadka amra xitaa hadda adduunkan hadda ku noolnahay oo social media soo baxay wax walba aad faafinaysid ama ajiraad ku leedahay ama dambiyaad ku leedahay sababtoo ah waxbaad faafisay waxaad aad faafisay dad kale ayaa si arkaya dadka kale si arkaya haday ku raaxaystaan quraanka cibaadada salaada oo kale duco yar ayaad xasuusisay ayagana way sameeyeen ajir ayaad ku leedahay laakiin bilcaks haday noqotana xumaanaad faafisay iyo wix la mid ah adigana dambi aad ku leedahay ayagana inta si arkayaan haday ku amal falaanna dambigaasna waa leedahay haddaba meel walba aad joogtid mar walba iyo second walba saacad walba noqo qof wanaaga faafiya noqo qof يعني sabab u ah wanaaga hana noqonin qof sabab u ah xumaanta dadka dhaxdoodana xumaana ku dhaxfaafin sababtoo ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala arinta ma jecla aan ku dadaalno insha Allah ta'ala bishan barakaysan ee Ramadan inaan ku dadaalno in aan dadka dhaxdooda aan ku faafino wanaaga iyo khayrka biidnillah subhanahu wa ta'ala
وقلبي إليه تبتل